bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal halkan waa kayanan ku soo dhowaado qodobada ugu waaweyn warka subax shirkii u dhaxeeyay hogaamiyaasha Soomaalida oo maalintiisii labaad galay iyo kulamo gaargaar ah oo xalay Muqdisho ka dhacay jabahadda TPLF oo inta badan gacanta ku dhigtay gobolka Tigray kana hortimid xabad joojintii dawladda Itoobiya ku dhawaaqday puntland oo ku dhawaaqday howlgallo kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab looga saarayo buuraha deegaanka ka tirsan gobolka Bari dagaalamayaasha Al-Shabaab oo dad badan ku dilay deegaanka ku yaala gobolada Baay iyo Jubbada Dhexe wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed oo kulamo dib u heshiisiin ka bilaabay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose maamulka degmada Afmadow ka deeriyay xaaladda caafimaad iyo midda waxbarasho ee degmadaas iyagoo eedan u jeediyay Jubbaland iyo dawladda dhexe iyo Mareykanka oo 10 sano kadib dib u soo celinayay xiriirkii dalka Suudaan Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waad diri kartaa si fudud hadda kala soo deg Play Store-ka waa subaxnimo Talaada taariikhda ay ku beegan tahay 29 bisha 6 Juun sanadka 2021 saaka waxayna waramay wariyayna Cabdullaahi Nuur Cali aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Yunus Duraan Cali ahna war soo saareen subax bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan shirkii u dhaxeeyay hogaamiyaasha Soomaalida ayaa maalintiisii labaad galay iyadoo kulamo gaargaar ah xalay ay Muqdisho ka dhaceen sidoo warkaan ku faahfaahinayo Yunus Duraan Cali waxaa maalintiisii labaad galay shirka golaha wada tashiga arrimaha doorashada Soomaaliya oo shalay hogaamiyaasha Soomaalida uga furmay magaalada Muqdisho si gaar ah teendhada Afisyooni shirkan ayaa waxaa gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana goobjoog ka ah madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland Galmudug Jubbaland gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed halka madaxweynaha Hirshabelle oo ku maqan dalka Turkiga kulankan uga qayb galaya aalada Zoom-ka shalay shirka waxaa looga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo waxyaabihii ka hirgelay heshiiskii 27 May ee hanaanka doorashooyinka dalka oo ay madaxda ku gaareen Muqdisho maanta ayaa mar kale kulankaana halkaas ka sii socon doona waxaana la filayaa in kulankan ka qayb noqdaan guddiga gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha u xilsaaray arrimaha doorashada kuwaasi oo warbixin laga dhageysan doono afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow oo ka hadlay shirkan ayaa beeniyay in kulankan uu yahay mid wax looga bedelayo heshiiskii 17 Sebtembar ee sanadkii hore arrimaha doorashooyinka laga gaaray warar kale ee la helaya ayaa sheegay in madaxda shirkan maanta kaga hadli doonaan dib u eegis lagu sameyn doono qodobada qaar ee heshiiskii doorashada sida qodobka ku saabsan labada goobood ee loo asteeyay maamul walba in lagu qabto doorashada dhamaadka shirkan ayaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ku saabsan waxyaabihii ay ku heshiiyeen madaxdan dhinaca kale xalay waxaa Muqdisho ka dhacay kulamo gaargaar ah oo ay yeelanayeen madaxda dawlad goboleedyada madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Lafti Gareen ayaa hoyga Muqdisho uu ka degan yahay wuxuu ku qaabilay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka iyo shirka u dhaxeeya madaxda dawladda iyo dawladda dhexe madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe jabhadda TPLF ayaa inta badan gacanta ku dhigtay gobolka Tigray kana hortimid xabad joojintii dawladda Itoobiya ay ku dhawaaqday sidoo warkaan ku faahfaahinayo Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan in ka badan 7 bilood oo dagaalo joogto ah iyo macaluul laga soo warinayay dalka Itoobiya si gaar ah gobolka ay Tigraygu degaan ee ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya hadda waxaa si weyn isku bedeshay xaaladda gobolka kooxda TPLF oo muddo 7 bilood ka badan ku dhuumaalaysanayay miyiga gobolkaasi ayaa haatan mar kale dib u la wareegay inta badan gobolka ka gadaal markii la sheegay in maalmihii la soo dhaafay dagaalo qaraar ay la galeen xogaga qaranka Itoobiya warar kale ayaa sheegaya in meelaha ugu muhiimsan gobolkaas oo ay ka mid tahay magaalada xarunta ah gobolkaasi ee Maqallo la yiraahdo aanay markaasi TPLF dagaalku la wareegin dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa war qoraal oo ka soo baxay xafiiskiisa waxaa lagu sheegay in xukuumadda Addis Ababa xabad joojin iskeeda ay gaartay laakiin xabad joojintaasi weli waxa ka sii muuqanayay hanjabaad ka dhana kooxda TPLF
waxaana ka mid ahaa waxyaabaha ku qornaa markaasi xabad joojintaasi in xukuumadda addis ababa ay sii bacsan doonto dadkii ka dambeeyey qaskii ka dhacay gobolka Tigray waxaana dhinaca kale la warinayaa in markaasi ay jiraan khasaare aad u xoog badan oo uu dhaliyay dagaaladii maalmihii la soo dhaafay halkaasi ka dhacayay mid ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Itoobiya si gaar ah magaalada Maqallo oo la hadlay laanta af Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu yiri waxaa jirta in askar waxa badeeyay ay sheegayeen dadku marka hal qof baa ku dhintay 3 qof oo kale ay ku dhaawacmeen oo jaamacadda qaybteeda main campus-ka weeyo ayadaa campus kala duwan kala leh qaybta caafimaadka business-ka engineering-ka marka sida la sheegay hadda wararka ugu soo gaareen arday baa dhintay 3 oo kale waa dhaawac laakiin wax Soomaaliya kuma jiraan wax bandow shaqeynaya ma jiraan shacabka hadda islaamiyada marayaan ay toga dagaaldegaan bandowga awal wuxuu la socday qolyahan militariga iyo federal police-ka magaalada gacanta ku haya laakiin hadda wax awa bandow jira ma jiraan waa tan inka magaalada hadda saddex yaacay iskuuriga hadda daaqadiisa ka fiiriyay dadka dhan waa soconayaan adigu waa soo dhaweyn iyo masxarad iyo dula koro yahay ay soo noqdeen saas oo kale wallahi intaan aan ka fahmayno luqadooda ay ku celcelinayaan kuwa hadda warwaraysato oo wajiyada waraysato kalaan xadayna nimankii soo noqday diilayeen waa soo dhaweyn camal bay u dhigantaa militarigu markay baxayeen xarumay degan magaalada xarumay ka degan inta badan magaalada ma dhex joogaan markay guriyeen oo baxayeen waa laga warayay teleefanaduna way shaqeynayaan oo dadku way iska warayaan qaliyan ayagu deegaanka u dhashay deegaanka iska warayaan marka in bedel kala guuro oo jiro waa la sabalnay waa la maqliyay inkastoo wararkaasi ay jiraan haddana xogayaha jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres oo khadka telefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaruhu u ballan qaaday in xaalad degdeg ah gobolkaasi laga abuuri doono laakiin dawladda Itoobiya waxa ay sheegtay in sababta ay militarigeeda halkaasi uga baxeen isla markaana xabad joojinta u qaadatay ay tahay oo kaliya maadaama la joogo xilligii roobka isla markaana dadka ay inta badan doonayaan in dhulkooda ay beertaan taasi ay tahay sababta xukuumadda Addis Ababa culayska ugu dulqaaday gobolka Tigray laakiin afayeen u hadlay kooxda TPLF waxa uu sheegay in gebi ahaanba aanay marna aqbali doonin xabad joojinta ay ku dhawaaqday xukuumadda Addis Ababa lama oga sababta dhabta ah ee sida degdeg ah isbedelkan ku keentay gobolka Tigray oo markaasi in ka badan 7 bilood uu dagaalo halkaas ka soconayeen waxaana dhinaca kale la tebinaya ama la sheegaya in ciidamadii markaasi dawladda Eritrea ee joogay halkaas iyaguna isaga baxeen dawladda Itoobiya waxaa la sheegay si gaar ah ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in uu wajahayo culaysyo aad u xoog badan oo kaga imaanayay dalalka reer galbeedka safaaradaha Ingiriiska Talyaaniga iyo Mareykanka ee ka furan magaalada Addis Ababa ayaa kulamo isdaba joog ah la qaadanayay toddobaadyadii la soo dhaafay waxaana magaalooyinka waaweyn ee TPLF haatan ay la wareegtay oo markaas ay ka mid tahay Maqalle durbaba dadka shacabka ah laga dareemayaa in si weyn ay u soo dhaweynayeen iyaga oo ciidamada jabhaduna wadooyinka waaweyn markaas ay kula mashxaradaynayay waxaana la dareemayay marka aad aragto muuqaalka magaalada Asmara amaba uu muuqdaa mid ay weli ka sii muuqdaan raadadkii dagaalka Cabdullah waad mahadsan tahay Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan maamul goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaqday howlgallo kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab looga saarayo buuraha deegaanka ka tirsan gobolka Bari sidoo warkaan ku faahfaahinayo Yuusuf Macalin Muuse Cumar taliyaha guud ee ciidamada maamulka Puntland General Yaasiin Cumar Dheere oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maalmaha soo socda buuraha deegaanka Balidhidhin ee gobolka Bari ay ka bilaaban doonaan howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daacish oo halkaas ku xoogan taliyaha ayaa sheegay in deegaankan u yimaadeen in kooxahan ka ciribtiraan maadaama dib badan haatan ay ku hayaan dadka deegaanka maanta waa la ku soo duulay ummadeena halka nabadda u joogtay waan cidna gardarhaysanayn baa lagu soo duulay dad baa inoo yimi meelo fog inoo ka yimi oo hadda buuraheenaas ku jira waxay doonayaan aan garanay waxaanu ka haysano xoolo iyo xukum ninna ma jiro wax miyaynu ka haysanaa waxaynu ka haysanaa ma jiro waa aabi iyo gardarro nolol ku yimi weey dadka halka ku jira qaar baanan afkooda garanayn waynan af garanayn dhowr wiil oo inaga ah baa la socda wax kale ma jiraan iyaguna sandareerto yar bay raadinayaan waa nimid dhulka iyaga wala joogayna waana dhamaynayna waa ciribtirayna nimanka buraha ku jira oo kooban oo xogaada ah oo duulaanka lagu soo qaaday waa ciribtirayna ciidanka iyaga waa hawlgalayaan ummadayadii anagoo kaashanayna oo garab ka helayna
waxaanu rajaynaynaa sida ugu dhaqso badan inaanu nimankaas aan u kala baxno oo u ciribtirno daacish iyo shabaab wixii dhulkaa ku jira war baanu kala helaynaa cad wasiiro ka tirsan xukuumadda Puntland oo ay horkacayaan wasiirada amniga Cabdisamad Galan iyo caafimaadka Jaamac Faarax Xasan ayaa bulshada deegaankan ka dalbaday in howlgalkan qayb ka ahaadaan si howlgalkan u noqdo mid guuleysta. balidin haddaynan wax ka qaban oo aynan iskaashan oo aynan shacab iyo xukuumad isugu tagin balidin degmannimada calama su'aal baa saaraanay waxaan rabnaa wax saxan oo dhab ah inaynu ku wada hadalno caadifad iyo been inaynu isu sheegno ma rabno annaga ma rabno inaan qancisaan horjoogaanu idin horjoogno inaad tiraadaan nimankan meel fog bay ka yimaadeen dawladdu mudaysan aagan ku soo noqnoqon maanta idin yimaadeen sacab ku soo dhaweeya sacabna ku sagootiya ma rabno xaqiiqad dhab ah waxaan rabnaa waxa aan dhahaysaan inay fulaan waxaanu idin oranayno annana inay fulaan baa naga rabnaa amniga marka aanu leenahay ciidankii amniga sugi lahaa oo diyaarsan siyaasadii amniga lagu sugi lahaa deegaanka oo diyaarsan qorshihii amniga oo diyaarsan inta aanu la maqnayn oo aanu idinka yara daahnay waxaanu diidanayn wax kala dhantaalan waxaan dhammaystirnayn wax qabya inaanu idinla nimaano sida dawladda Puntland ay u danaynayso in deegaanada laamiga ka baxsan ee uu deegaanka Balladhid ka mid yahay in la gaarsiiyo adeegii dawladdu ugu tala gashay sidaa daraadeed waxaa dawladdu xoog saaraysaa meelaha Balladhid ay ka mid tahay ee laamiga ka fog in adeega si fiican loo gaarsiiyo adeegaas waxaan la wada soconnaa wax ka horeeya inay jiraan haddii aan amni jirin adeegaasi suuragal ma aha deegaanka Balladhid qarax miino oo sabtidii ka dhacay waxaa ka badbaaday wasiirka amniga Puntland inkastoo qaraxa ay ku geeriyoodeen ciidamo ilaalo u ahaa wasiirka amniga wuxuuna howlgalkan imaanayaa iyadoo Puntland dhawaan qisaastay dad gaaraya 21 ruux oo ay al-shabaabnimo ku eedeysay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dad badan ku dilay deegaano ku yaala gobolada Baay iyo Jubbada Dhexe cali cilmi salaad ayaa inoo haya warkan kooxda al-shabaab ayaa markale dad shacab ah waxay ku dileen magaalooyin dhaca koonfurta dalka kuwaas oo ay ku eedeeyeen waxay ugu yeereen basaasnimo fagaara ku yaala deegaanka Buulafuulay ee gobolka Baay ayaa gelinkii dambe al-shabaab waxay ku dileen 5 ruux oo ay sheegeen inay ku heleen iyaga oo la shaqeynaya sirdoonno caalami ah dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka ayay shabaab waxay isugu yeereen inay isugu soo baxaan goobta fagaaraha ah ee dilka uu ka dhacayo si ay goobjoog u ahaadaan qaabka uu dilka u dhacayo dhinaca kale fagaara ku yaala degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayay al-shabaab isla gelinkii dambe ee shalay waxay ku dileen 5 qof kuwaas oo dhammaantood rag ahaa sida ay barahooda internetka ku baahiyeen dadka shacabka ee iyaguna Jilib lagu dilay waxay al-shabaab ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen sirdoonka Mareykanka wadar ahaan dadka al-shabaab ay gelinkii dambe ee shalay ay ku dileen deegaanka Buulafuulay ee gobolka Baay iyo degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe waxay gaarayaan in ka badan 10 qof oo shacab ah al-shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay kordhiyeen dilalka deegaanadooda ay ka geysanayaan waxayna dadka ay dileen ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen sirdoonno caalami ah maalin ka hor ayaa sidan oo kale al-shabaab waxay 6 ruux oo mid kamid ah ay ahayd haweeney ay ku dileen degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed ayaa kulamo dib u heshiisiin ka bilaabay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose sidoo warkaan inoogu soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga koonfur galbeed iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qaybta 6aad iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed oo ku sugan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo dib u heshiisiin ah kulamadaas oo loogu gal leeyahay sidii xal loogu gaari lahaa dagaal beeleedyo muddo ka taagnaa degmada Walaweyn kuwa oo weli xal rasmi ah laga gaarin wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed Maxamed Abuukar Cabdi oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay ujeedada kulamadooda inay ku qatanto sidii loo xalin lahaa dagaal beeleedyo muddo ka jiray
degmada Walaweyn ka oo sababay inay isku dhacaan gudoomiyihii hore ee degmada Walaweyn iyo gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada dagaalkooda oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ay wadaan sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa ciidamada ku sugan degmada Walaweyn kuwa uu sheegay inay ka qayb qaataan colaad beeleedyada ka jira degmada Walaweyn. lamaado socdaalkan ma ilaahay qayb weyn ku nagada doonto may waa dhinaca amniga may la soo wasiirkii amniga gudaha iyo taliyada daraawiishta guud ee Koonfur Galbeed ee UNIS oo yoona dhinaca amniga ku shaqeey doonaan hadii ilaahay halka nagada ciidamadii hore meelan la ka dhisi ani diblanka nagada la xaqiijiyay amniga degmadan oo xaqiiqdii muhiim ah ee Koonfur Galbeed iyo gobolka Shabeellaha Hoose ani amni shay iyo kala dambeysha ku shaqeey si taas lan dardar galiyo waana lan xaqiijiyay mayna la socday taliyada guud ee daraawiishta Koonfur Galbeed may rajeedoona insha Allah taala maalmo socda mustaqbalka bulu ku bilaaw in isbedel dhinaca amniga iyo dhinaca meelaha bulshada magaalada la sameeyo doona hadii ilaahay halka naga Walaweyn meelaha xaqiiqdii dad la ka soo xaqiiqdii la sheegay gudoomiye baro sheegay ani dad nimadeed in dawladeed in dad meelaha diyaaran oo murugmaalate shaqaysado ama ganacsado ama beeraley foodo walanka lahayna taariikhda kaliin waan walka kase laakiin ma rajir xaqiiqdii mar walba way isku jara kore waxyaabo yar oo sumcadda bulshada ama tan dadka wanaagsan walan dhimo shakhsiyada nagada koraan walwalba nagada koraan intaasna way leena ku codsadaane dawlad ahaan may waa ani may lahaay bulshadan dhatiye dad fara ku turis ee may lahaay dhibaateen ma ogolaada doona way fadaane an ka baaqane in nabadda qayb ku nagdan. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, Radio Kulmiye, magaalada Baydhabo. maamulka degmada Afmadow ayaa ka deeriyay xaaladda caafimaad iyo midda waxbarasho ee degmadaasi iyaga oo eedan u jeediyay Jubbaland iyo dawladda dhexe. Faahfaahinta warkaana waxaa inoo soo diray Cabdimajiid Cabaas Aadan. gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Afmadow ahna duqa magaalada Maxamed Cabdullaahi Cusmaan oo warbaahinta kula hadlay gudaha Kismaayo ayaa waxa uu faahfaahin guud ka bixiyay xaaladaha waxbarashada iyo caafimaadka degmada Afmadow. gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Afmadow ahna duqa magaalada ayaa ugu horreyntii waxa uu sheegay in xaalad caafimaad oo daran ay xilligan ka jirto degmada Afmadow iyo deegaanada kale ee hoos yimaada. gudoomiye Maxamed Cabdullaahi Cusmaan ayaa waxa uu sheegay in xilligan cisbitaalka degmada Afmadow uu qarka u saaran yahay inuu xirmo kadib markii uu sheegay in daawo la'aan ay soo wajahday cisbitaalka. sidoo kale gudoomiye Maxamed Cabdullaahi Cusmaan ayaa waxa uu sheegay in xaaladda waxbarashada ee gobolka ay xilligan aad u liidato gaar ahaan 3 meelood 2 meel caruurta degmadaasi ay xilligan yihiin kuwa aanan waxbarasho haysan sida uu hadalka u dhigay. Maxamed Cabdullaahi Cusmaan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in warqado uu u qoray wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka ee dawladda Soomaaliya ilaa iyo haddana aysan ka soo jawaabin baaqa, waxaana uu sheegay in arrinta cisbitaalka degmada Afmadow xilligan daawo la'aanta soo wajahday ay sidoo kale cayb ku tahay maamulka Jubbaland loona baahan yahay in arrintaasi si degdeg ah looga jawaabo. way taagan tahay wali hadii dawlad la'aanti waa taagan maana hore faleebaa la waayay dadkii shubmaya faleemba loo waayay waa dhibaato leedahay waa dhibaato inteeda leeg waxa ka hooweyn meesha ay magaalada u baahnay waa isbitaal magaca isbitaal uu ka jira laakiin dawladda la keenay ilaa had waa NCH marka usbuuc ma gaadho ay noqonaysaa dadku marka in taqaatiirtu ay u qorto dawladda ay farmasiyaasha ka doontaan private-ka oo shacab dadku gaarka ay u leeyihiin taasina dhibaato weeyaan aad bay dhibaato u tahay waa arrin ceeb ku ah hay'adaha gacanta ku haya sida mataqaanaa Save the Children oo hadda isbitaalka Afmadow inta badan hadda gacanta ku haysa muddadan dambe MSF oo timid iyo hay'adaha kale iyo dawladda Jubbaland iyo dawladda federaalka waayo ma aha Afmadow meel NCH ay dawladda loo geeyay ay tahay ma waxaan wali si gooni ah aan mataqaanaa farintan aan halka uga faa'iideysanayo ka codsanaya aniga hore inaan ugu sheegay wasiirka cusub ee wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland inuu xil iska saaro in isbitaalka Afmadow dawo ku filan ay hesho waa arrin ceeb ku ah xataa maamulka Jubbaland marka arrintaas waa arrin dhib badan bay ahayd way taagan tahay wali hadii dawlad la'aanti waa taagan maana hore faleebaa la waayay dadkii shubmaya faleemba loo waayay runtii aniga warqadan u qoray wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka labadaba oo aan mataqaanaa heer federaal labadaba u qoray wasiir Cabdulle iyo wasiir Fawziye labadaba u qoray arrimaha ka sheekeynay baahida jirtona aan ka sheekeynay ilaa haddana jawaab kama aan helin sababaha ay u dhigeen inay kamid tahay mataqaanaa il gaar inaan lagu eegayninba wali ma garan marka arrimaha ugu badan ee hadda aan ka dagaalamayno kamid tahay inay ilmahan waxbarasho helaan
caafimaadkana isbitaalka uu dawo ku filan helo magaalada horumarkeeda waxyaalihii ay u baahneed. cabdilmajiid cabaas aadan fantastic knn kismaayo. weli waxaad la socotaan warka subax ee shabakadda wararka kulmiya. waxaa inoo soo socda wararkii dibadda balse iminka dowladda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay inay si buuxda u soo celi doonto xiriirkii dalka suudaan kadib 17 sano oo xiriirka labada waddan oo aad u liitay. madaxweynihii hore ee dalka maraykanka Donald Trump ayaa waxaa hore u sheegay in suudaan laga cafin doono in ka badan 300 oo milyan oo dollar haddii ay suudaan Israa'iil u aqoonsato dal. ra-iisul wasaaraha dalka suudaan Cabdulla Xamduug ayaa arrintaasi si weyn u soo dhoweeyey waxaana dhammaadkii 2020 suudaan ay ka mid noqotay dalal carbeed oo si buuxda u aqoonsaday maamulka yuhuudda. afhayeen u hadlay xukuumadda suudaan ayaa wuxuu sheegay in xafiiska ra-iisul wasaare Xamduug iyo madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ay yeesheen wada hadal muhiim ah middaasi oo keentay go'aanka dowladda maraykanka. guud ahaan warkii subax oo aad kala socoteen idaacadda kulmiye waa naga intaan warkan war lacayna ku kulmi doono waa bahdi warka isku duuban oo idin leh subax wanaagsan.